جنال xogaha media waa janal taagan taariikh inuu kaaga sheegayo wax walba oo maskaxda ku dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhameystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnow janalka xogaha media una sii sheegare asxaabta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرن جنال كنا حقها ميديا كسر وهذا برنامج أنا قاعد لدونا التاريخ ذلك جيبوتي ولو يقان جمهورية جيبوتي وضلير أوكي على بريق جيش أفريقيا جيبوتي وحي حل لهذا إريتريا أو حاجة وقوي كحكتا إثيوبيا أو حاجة قلبات يا كونفور بكحكتا يا صوماليا أو كونفور بريكحكتا لنا عكلا جيبوتي وحكي حاجة بدع عس يقعن كعدمات مقالة مدح جيبوتي ومقالة أو بلارن دي جيبوتي لو قد رسم جاه لوجه ذلك جيبوتي وفرنسيسكي يا عربي لو قد la aqoonsan yahay ee dawladda aqoonsan tahay waa afka Soomaaliga iyo af Canfarta xukunka dalka waxa gacanta ku haya Soomaalida madaxweynaha dalka waa Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaarahana waa Abdulqaadir Kaamil Maxamed waxa ay xorriyadoodii ka qaateen Faransiiska 27 Juun 1977 baaxadda guud ahaan waa 23200 kiiloomitir square ah waxa ay biyo fadhiyaan eber 9% ama 20 kiiloomitir square ah tirada dadka reer Djibouti 2013 qiyaastii la sameeyay waxay dadkii reer Djibouti noqdeen 792198 wax soo saarka Djibouti 2012 qiyaastii guud ahaan dalka Djibouti wax soo saarkiisa waxa uu ahaa 2 bilyan 379 milyan lacagta Djibouti waa franc waqtiga sida caadiga ah Soomaalida ay kala mid yihiin wadista baabuurta waxa laga wadaa baabuurta dhanka midig furaha telefoonka Djibouti waa balaas 253 taariikhda Djibouti waxa soo maamuli jiray beelo kala duwan beelahaas oo ahaa Ciisi Canfar waxa ayna kala degaan koonfurta ay Soomaalidu degan tahay iyo waqooyiga oo ay Canfartu degan tahay 1830 ayaa Faransiisku waxa ay qabsadeen dhinaca waqooyi ee Djibouti kadib waxa ku sii faafeen dhammaan wadanka intiisa kale waxayna magac uga dhigeen dhulka Soomaalida ee Faransiisku guumaysto taasoo aad ka dareemi kartid in cidda dhulka loogu yimid ama guumaystii Faransiisku wax la saxiixatay ay ahaayeen qowmiyadda Soomaalida oo iyagu hoggaanka dhaqan iyo dhaqaalaba ay jihadaas waqtiga gacanta ku hayay 100 sano kadib waxa bilowday dhaqdhaqaaq guumaysidiid kaas oo ku fiday dhammaan dalka intiisa kale waxa bilowday axsaab oo laleynaysa sidii la isaga dulqaadi lahaa heeriyada guumaysi waxaana ka madax ahaa marxuum Maxamuud Xarbi oo loo yaqaan halyeeyigii Djibouti isaga oo taariikh weyn ku leh dalka 1977 ay Djibouti waxa ay heshay xornimadeedii oo ay muddo dheer u soo dagaalamaysay waxaana joogay ciidamo Faransiis ah oo gaarayay 2000 oo askari oo loogu talagalay inay ka dhiciyaan Ethiopia ama ay ka difaacaan Ethiopia oo damacsanayd inay qabsato waxa madaxweyne ka soo noqday marxuum Xasan Guuled Abtidoon oo loo yaqaan aabihi ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaare ayuu u magacaabay marxuum Axmed Diini Axmed baarlamaanka ayaa isagana ka koobnaa 61 kursi oo ka koow ka ahaa madaxweynaha dalka madaxweynaha waxa la soo doortaa 6 sano mar xagga baarlamaanka la soo dooran jiray 5 sano mar muddo kadib waxa bilowday isafgaradwaa dhinaca siyaasadda ahaa maadaama ay xisbi kaliya uu ka talinayay dalka waa RPP koox uu hogaaminayay Axmed Diini Axmed ayaa bilowday dagaal jabhadeyn ah waqooyiga dalka kadib markii la isku afgaran waayay siyaasadda 1991 ayay bilaabeen dagaalo dawladda Djibouti ayaa dhinaceeda ka waday wada hadal iyo afgarad siyaasadeed waxayna ku guuleysteen sanadkii markuu ahaa 1994 waa wadanka ugu yar geeska Afrika waxaana haatan madaxweyne ka Ismaaciil Cumar Geelle Djibouti waxa loo qaybiyaa 6 maamul goboleed gobolka Djibouti gobolka Cali Sabiix gobolka Carta gobolka Dilik gobolka Tajura iyo gobolka Obok siyaasadda Djibouti wadanka Djibouti waa wadan jamhuuriyad ah waxayna leedahay madaxtooye iyo baarlamaan waxa madaxweyne ka ah dad Soomaaliya madaxweynaha wadanka Djibouti haatan waa Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweyne noqday 1999 madaxweynaha labaad Guuleed waxa codsiga shacabka reer Djibouti uu ka helay 100% waxaana codeysay 78.9 boqolkiiba shacabka jamhuuriyadda Djibouti baarlamaanka Djibouti waxa uu leeyahay 65 xildhibaan oo la doortay 5 sano ama 9 sanaba mar Djibouti waxa jooga military ajaanib u badan Faransiiska iyo Mareykanka oo halkaas ku leh xiriyo military shacabka Djibouti dadka Djibouti ku nool aqlabiyadda waa Soomaali iyo Canfar waxayna u badan tahay Soomaali oo ka badan 67% shacabka Djibouti oo dhan dadka Canfartu waa 31% dadka kale ee ka yimid wadamada Soomaaliya Yurubta iyo Carabta iyo wadamada Ethiopia waa ay joogan luqadda looga hadla Djibouti wadanka Djibouti waxa looga hadlaa afka Faransiiska iyo Carabiga oo ah luqadaha rasmiga ah ee dalka laga aqoonsan yahay waxaana kale oo ku xiga luqadda afka Soomaaliga iyo Canfariga luqadaha labaad ee la aqoonsan yahay afka Soomaaliga waxa loo adeegsadaa heesta calanka
juqraafi ahaan Djibouti waxay ku taalaa bariga Afrika waxayna xuduud la leedahay Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya iyo badda cas iyo gacanka cadmeed baaxadda dhulku waa 23200 oo kiiloomitir square Djibouti waxay xuduud ugu dheer la leedahay wadanka Ethiopia oo dhirirkeedu yahay 349 kiiloomitir waxa ku xiga Eritrea oo ah 109 kiiloomitir waxa ku xiga dalka Soomaaliya oo ah 58 kiiloomitir xeebta Djibouti dhirirkeedu waa 314 kiiloomitir jawiga Djibouti waxa uu u dhaxeeyaa 31 ilaa iyo 100 garaado waa wadan aad u kulul oo saxaro leh dhaqaale ahaan Djibouti waa wadan yar oo ku yaala jidka ganacsiga waxa uu la shaqeeyaa wadamada caalamka dhinaca dhoofinta alaabta iyo dhinaca shidaalka dekada Djibouti waa dekad aad u camiran waxaan ognahay in dekada Djibouti tahay meel ay dawladda Ethiopia wax kala soo degto waxna ka dhoofsiisato militariga wadanka Djibouti waxa uu leeyahay ciidan dhulka midka cirka iyo kan badaba militariga Djibouti waxay gaarayaan 16763 askari 8260 waa rag 8503 waa dumar diinta masjidkii ugu horeeyay ee dhagaxa ee laga dhisay Djibouti waxa dhisay Xaaji Diide isla kaasoo loogu magac daray Maxamuud wadanka Djibouti 94% waa muslimiin dad waxa jira aan muslimiin ahayn oo aanan gaarin 6% kuwaas oo ah Kristaan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo ah xilligii ay xorriyadda qaadanaysay jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ogolaaday ama uu meel cad ka yiri inaysan dawladda Djibouti looga baahnayn inay dalka Soomaaliya ku soo gasho wax baasaboor ah dadka Soomaalida iyo dadka Djiboutiyankana ay isku mid yihiin hadday doonaan dalka Djibouti waxa ku xireena dadka Soomaalida ah baasaboor ama fiiso waxaana kamid ah hadaladii uu Siyaadku ka yiri maalinkaas madasha sida tan kaleeto waxa weeye arrinta la xiriirta ma viisada ama dalku galka waa ogtiin Djibouti maalinta xor noqoteen anigu waa imi shir baan la qaatay dawladda Djibouti Xaaji Xasan uu ka mid yahay baadon ka mid yahay waxaan u cadeeyay anagu mabdi'iyan noo muuqato laba dal oo walaala ah oo diris haddana ah wax u dhaxaya aan jirin in loo qaato ruqsad dalku gal annaga nalama aha annagu u goyn mayna adinku aad rabtaan u goosto adinku xoolana ka dooni mayno xaqdi